السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولك قيمة بدن ولا شد شرفت بدن إله سبحانه وتعالى مركزته هاي النوافجيو وح قلبي وكتجو آخري أدومبا وحمال مان السوتري وأتكور هيسين لبعتذا يهوج يهلاجا ومدينا هيستا هدين نقطة قربها هدين نقطة دلكيبا waxaa ugu daran xanuunkii aynu ka seexan weynay daratoole waxaa ugu daran hooyooyinkii iyo caruurtii hilbahooda wadada laga gurayay waxaase ka sii daran inta hog ee inaloo qaday iyo hagardaamooyinka inagu soo maqan ayaa ka daran haddaba yaa ina dilaya haddaba maxaa inaloo dilayaa haddaba xalku muxuu yahay marka hore waxaan ku bilaabayaa aayadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka muslimka ah markii meel laga qaniino wuxuu dib u milicsadaa taariikhdii hore qofka muslimka ah waxaa muraayad u ah markasta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka muslimka ah waxaa bays u ah markasta waxaa weeyaan waa insaaniyadda iyo ibni aadanimada iyo raxmada maxaa yeelay nebigu asaga dhahaya calayhi salaatu wasalaam arraaximuuna yarxamuhum arraxmaan kuba naxariista ee raxmadda badan ilaahay baa u naxariista iyagana oo naxariistiisa waafajinaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii uu xaaskiisa keenay buurihii cidlada ahaa ee uu daba maray araygii ugu horreeyey uu ku duceeyey waxay ahayd rabbi ijcal haada albalada aamina rabbi ijcal haada albalada aamina ilaahayow baladkan amnisi كدبنا وحا الراعي وارزق أهله من الثمرات إلهي وأرزاقد واسعان سي إبراهيم عليه السلام أفرت الدعاديس وحا وكهر مري أرزاقد يروني لعوني أمني بكهر مري محايا لها دوسا أمني جرين كوبي أكادق مايو هدوسا أمني جرين راحمة هالو هدوسا أمني جرين أروس دعي مايو هدوسا أمني جرين سجود كرة حيسان ميسيد هدوسا أمني جرين عيال كايغا دوكسي iyo diin iyo cilmi u dirsan baysid haduusan amni jirin ibkaas ayuu leeyahay nicmada amniga waxa yaqaan qof amniga waayay nicmada amniga waxa yaqaan qof amniga waayay arzaaqadii iyo waxa dhuunta la mariyayna amniga ayaa ka horeeya ibraahim calayhi salaam iyo aayadaha quraanka daliilku ah ka soo soco nabiyullaahi muusa iyo calayhi salaam ilaahay markii uu nabiyullaahi muusa uu la hadlayay ee muusa uu yimid وإلهي كوري يا موسى وحاج جوكتا إنك بالوادي المقدس وامرك إلهي كوري سبحانه وتعالى سؤاله إصداف صديان موسى يا إلهي وحا كمدأها إلهي موسى وحو كيري سؤاله أقهر ريي وأن ألقي عصاك موسى وطور أشهد موسى وأشهد طور مركي موسى وأشهد طوري فلما رآها تهتز مركو أركي أشيو قريريسا كأنها جان ولا مدبرا موسى مركو أركي أشيو أبيسي اسكو بدا شيء عقو وحكدي نبي موسى عليه السلام حالة عبسي باسو وجه هذي ميل اي عبسي تالاني عد نغاني سو اوفر إني سمالها نبي الله موسى عليه السلام إلهي هرتيسا أيو كعرري محايل عبسي ماشي تمت ماشو هدي عبستي ماده مساجد لا آذي مايو ماشو هدي عبستي ماده جماعة لو أوغي مايو ماشو هدي عبستي ماده وحل قمن كرا اسكير موسى عليه السلام وكعر ماشي إلهي با كدب الله يا موسى أقبل صنقو ولا تخف عبسن إنك من الآمنين أمني بات كجرتا يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين موسى دب صنقو أمني بات هليسا حالة أمني بتكون سجنتهاي يعني وحى لوجو بير جلعسية وحى لوجو قلب الدجي نبي الله موسى وحوها إن وسوح لي بتأسو قارين هذا بها ضي أنبياء الله سبحانه وتعالى وإبراهيمنا وجد عي أهل كيسية مك وجد عي نبي الله موسى عليه السلام إلهينا وكير أري وقري أمني بدهلي ساي صنقو أذيك كم إمي سأيو أمني وقيمة كوجوجا موادن أذيك كم إمي سأيو أمني أكتر قيمة كليه أما هرجيسة شوك أما بورم شوك أما جرو شوك أما كسمايو شوك أما عداد شوك أما تشكيك شوك أمني إمي سأيو قيمة كليه نبي الله محمد عليه السلام مركي وفرت مكة
ee uu dhowr iyo tobanka kun ee ciidan uu la soo galay boqolaalka kun ee ciidan uu la soo galay ee markaasi ay naxeen kufaaru Makka kulligood ay dhahan maanta waa inala hayaa erayadii ugu horreeyay uu nabigu u soo diray iyo dhamballadii waxa kamid ahaa waman dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin waman dakhala alka'bata fa huwa aamin waman Allahu akbar ومن أغلق دون قفك غوريغا سو خدوا امني بكجرا قفك كعبده قال لا تابن مايو قفك دارت ابو سفيان قال لا تابن مايو بعض الروايات قفك حتى هوبك اسكا تور لا تابن مايو الكاس ايو قيمه كغار اسلام كامني بارك الله فيكم هدي marka diinteenu ay markasta amniga inagu boorinayso hadii markasta diinteenu ay leedahay nabadda ka shaqeeya hadii diinteenu markasta masaalixda adoomada iyo ay ka shaqeynayso caalamka oo idilday ka shaqeynayso maxaa inaga oo muslimiin ah mar walba inoogu shaabadisan tahay inuu dad amniga burburinaya haddaba waxaad ogaataa ciladu in ay tahay inaga oo ku dhaqmi weyna kitaabka iyo diinta inaga oo ku dhaqmi weyna amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga oo ku dhaqmi weyna xagee marka in laga soo gal haddaba haddaan inaga Soomaalinahay maxaa inagu dhacay نبي الله محمد عليه السلام يا أصحابتيسي مركي غزوة أحد أي قالين إلا بابئي إيه تضباطا لقدلي إيه وحنكور أصحابتي قرر داوعي إيه النبي قال داوعي عليه الصلاة والسلام إيه دي قال لقد هذه إيه مدحي سلا جاحي مركاسا وحيدهم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا نبكن حقونا قاري إله بأسو جاوه سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم أكتينا وينبر إله سبحانه وتعالى أنا أقول هذا بوحنا ليهي نبكى إنه قد دعي Soomaali ba keentay dhibka uu nagu dhacay Itoobiya nama keenin Imaaraadna ma keenin Turkiina ma keenin cid kale ma keenin dhibka inagu dhacay inaga ayaa isu keensanay maanta waxa la helayaa boqolaal qof oo Soomaali nala ah oo caawa jeclaan lahaa wixii ka dhacay Muqdisho inuu Hargeysa ka dhaco boqolaal Soomaali ah oo caawa jeclaan lahaa wixii xamar ka dhacay Kismaayo ka dhacaan in ay marka ka dhacdo in cadaada ay ka dhacdo oo cadaada lagu halaagsamo in dhuu Soomaaliyeed lagu halaagsamo inagii baa bohol isu qodayna inagii baa isku kacsan inagii baa isbaabi'inayna markaasaan wax la Imaaraad weeyaan Turki weeyaan Itoobiya weeyaan Kenya weeyaan waxa in qarxinaya tusaale ay inoo soo qadan doona example yar baa intu soo doona dibka meesha uu ka socdo billahi calaykum waxa isdilaya waa inaga waxa isbaabi'inaya waa inaga ya isshir qoolina caawa wallahi thumma wallahi hadii la yiraahdo Kismaayo iyo umada ku nool iyo ciidamada ammaanka ee jooga waxa galay al-shabaab oo eber ka dhigay dad baa caawa durbaano tuman laha hadii la dhaho caawa villa Soomaaliya iyo wax degan baa dad baa caawa durbaano tuman laha hadii la dhaho caawa suuqi Hargeysa la dad baa caawa durbaano tuman laha hadii la ascaan iyo garwalgol kadalik inagii baa isku faraxsan inagii baa boqnaha isgoonayna inagii baa isdilayna inagii baa iswanjalayna inagii baa isdhiibayna inagii baa iskhiyaanayna inagii baa isxadayna markaas waxa la nahay waa hebel iyo waa hebel qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum qul huwa min indi anfusikum ilahna wuxuu subhanahu wa ta'ala إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هل كان الإسوار هي حقد إي عقدت قبل ما سلاميو tuule ku duuleysa businesskii baa la isku haystaa dekadihii baa la isku haystaa maamulkii baa la isku haystaa wax walba jaaliyadihii iyo masaajidadii qurbaha la isku haystaa oo boolis la isku dhiibay aan u taagnay barakallahu fiikum jaaliyadihii iyo ma aragtay masaajidii iyo meelahan ku tukan jirno qurbaha ayaa boolis isku dhiibay oo la kala xirayo reebel uu kala qoran yahay goormad waddanka wax u qabanaysaa mise inagu waxa weeyaan dadka un bay naqasay loo xagto bisayr baa in soo qaadaya yaa wax dila waxaa jira ikhwaani si fiican dhageysta barakallahu fiikum waxaa jira walaal halkan soo gala ila soo xariir ayaa maalmaha kamid soo wacay wuxuu ugu yiri aabahay oo 60 jir ah oo masaajid ka soo baxaya halka xabad looga dhuftay buu yiri awalan wuu soo wacay wuxuu yiri hooyaday ayaa tacsi u taala oo raba in asay xiratay asayda maxshuruuteeda maxaa kamid ah barfuun ma xiran karta markaas aan ku yiri hooyadaa maxaa ku dhacay wuxuu yiri aabahay baa la dilay oo yaa dilay wuxuu yiri aabahay asagoo suuqa bakaaraha ka soo baxay salaadii maghrib tukaday saas masaajidka uga soo baxay ayaa inta saa loo tureeba halka xabad lagaga dhuftay aabahay waa la dilay habeenkii dhan baan ooyo lahay ilaahay waxa ummadda masaajid ku dhaxlayna ilaahay ummadda ka qabo ilaahay calaamad ka saar ilaahay soo saar muddo kadib wiilkii baa soo wacay oo ila halkii dadkii aabahay dilay waa la helay waxaan ku orisay loo helo yaa dilay waxa uu yiri aabahay inta aan la dilin waa la soo wacay waxa lagu yiri lacag inta la eg meel noo dhig ganacsadan aabahay uu ahaa buu yiri lacag inta la eg meel noo dhig aabahay wuxuu yiri baad bixin maayo wax yar kadib message baa loo soo diray masaajidka lagu toogtay مسجدي اللي صدر تلفن كي بان قادناي بيوري شركتها قار بان لا تيغسناي بيوري hawshii baaritaan iyo dhageysi
waxaan helnay buu yidhi laba nin oo jooga meel yadaha albaraka ee dhulka iyo taagan ayaan helnay buu ka war helnay in taleefanka isticmaalaan waxaa la bilaabay in la dhagaysto labadii nin baa warayada isdhaafsanayaan waa la soo qabtay buu yidhi labadii nin ee aabbahay dilay markii la keenay waxaa caddaatay buu yidhi aabbahay in ay ka dambeeyeen niman kaloo isla Soomaali ah wuxuu yidhi aabbahay xabadda lagu dhuftay lambarka ku qoran buu waa lambarka dawladda buu yidhi aabbahay waxa dilay xabadda ku qoran buu yidhi waa wuxuu yidhi waxay ka soo baxday rasaasta dawladda kow wuxuu yidhi nimankii la soo qabtay markii la jir dilay oo la garaacay oo xabsi laga la wareysana waxay caddeeyeen buu yidhi in uu ka dambeeyay nin hebel la yiraahdo oo markaas waaye kursi aabbahay wuxuu ahaa buu yidhi ergadii soo dooratay xildhibaanada marka kursigu wuxuu siiyay nin kale ayuu ugu deeqay marka ninkii kale ka soo horjeeday kursiga waaye ayaa ikhtiyaalkan sameeyay halka marka maxaa ka cad halka waxa ka cad asaasta la isticmaalayo iyo raadadka la isticmaalayo in raadad diinad ay tahay oo masaajid qof ka soo baxay iyo wax noocaas ah laakiin ajandooyinka ka dambeeya ay yihiin inagii oo shaatiyada isku soo xiranayna hadda marka maxay u baahnaa hadaba waxa isdilaya waa inaga waxa isqarxinaya waa inaga waxa isbaabiinaya waa inaga waxa is-ikhtiyaalaya waa inaga waxa dawlad diidan waa inaga waxa mucaaradka ah waa inaga waxa wax ka soconaya waa inaga xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay oo culimada u diraya baaq odayaashana u diraya dhalinyarada u diraya ummadooda u diraya walaalayaal waxaan u baahanahay heshiin guuleed baan u baahanahay waxaan u baahanahay in aynu qabanno madal nabadeed meel kasta lagu qabto tuulo kasta iyo magaalo kasta iyo xaafad kasta in aynu gogol dhiganno in aynu isku nimaadno in aynu ducaysanno in aynu madaalimtii waxaynu kaleysana aynu isku celinno in aynu garbaha isqabsanno in aynu iscaawinno in maalin kasta ay taagnaato gogol iyo meel dad lagu heshiisiinayo ama xaafadu xaafad ha noqoto ama magaaladu magaalo ha noqoto ama wadanku wadan ha noqdo ama odaytu oday ha noqdo anigu waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa mar kasta iyo meel kasta oo la joogo haday noqoto qurbahan aynu joogno iyo haday wadankii noqoto in la badiyo heshiisiinta magaalada aan degan hal iskama salaamo magaalooyinka wixii kale iskama salaamo boqolaal local iyo jarida kala furtay mid la ciida malaha mid salaamo malaha qurbihii baasaal isku wada wanjalayaayo boqonaal isgoynaya wadankiina xabada iyo waxa la isku dhigaya banbal isku dhigaya war dib u heshiisiin baan u baahanahay war waxaan u baahanahay in aynu nabadda ka shaqeyno war waxaynu u baahanahay ummadda inaynu isu keenno war waxaynu u baahanahay cadli inaynu helno war waxaynu u baahanahay in aynu dadkeena garab istaagna barakallahu fiikum حلقة يتلاقي ذو أنتاس جزاكم الله خير الجزاء وحن عصنا إن شاء الله تعالى ولا عل إذا قار إن يكون إله سبحانه وتعالى ومسؤولين تأه إنه إلهي ما أرتيه كو إلهاميو أما أي رأي كقاتان إن دواره لقيب ستان جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته